dekada Muqdisho waa isha dhaqaalaha ugu weyn ee dawladda Soomaaliya waxaana ka soconaya isbeddello lagu horumarinayo taa oo ay ka mid tahay inay habeenii maalin shaqeyso wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka dekada ayaa farsamo ahaan ku hawlan sidii shaqada dekada looga dhigi lahaa mid 24 saac 7 maalin ee asbuuca shaqeysa dekada inay habeenii maalin shaqeyso oo dekada ay ahayd mid habeen iyo maalin shaqeyso waa marka aan ka hadlayo dhinaca dejinta iyo raridda dekada habeen iyo maalin ay shaqeysaa kaliya waxa naga maqan waxa ay ahayd suurtagalnimada in gaadiidka waaweyn ee shixnadaha marka daabulaya in ay habeenimo ka baxaan dekada taasayna ahayd inaan ka shaqeyno oo tashi fara badan aan ka sameeyno sida la socotaan bishii labaad ayaan ku dhawaaqnay in aan qorsheynayno dekada in gaadiid habeenkii laga rari karo xafiisyada maamulka canshuuraha dekada iyo dhammaan laamaha ku shaqada leh howlaha dekada ayaa shaqeynaya habeenkii taas waxa ay caasimada ka yareynaysaa saxmadda gaadiidka xamuulka waxa ayna xoojinaysaa tayada shaqo ee dekada iyo dhaqaalaha Cabdiraxmaan Maxamed Cagaweyne waa maareeya ku-xigeenka dekada Muqdisho in shaqada ugu badan oo maalintii baabuurta bixisay loo bedelo habeenkii iyadoo maalin ay habeen dekadu shaqadeedii sida awal u shaqeynaysay lagu dari doono qaybaha ka dhiman oo hay'adaha jooga dhamaantood ay wada qabsan doonaan howlihii ku aadanaa meel fiican noo maraysa hawsha gaadiidleyda xamuulka ka qaada dekada ayaa fursad weyn u arkay inay habeenkii gali karaan dekada taa oo siinaysa fursad shaqo oo dheeri ah hadeerta maadaama aan marayna habeenkii shaqadan laga dhigo aad weyn waa soo dhaweeyna marka waxaan fursad baan leeyahay gaadiidkii naga kala yaraaday maalintii dib badan aan ku qabnay habeenkii noo fiican habeenkii laakiin wada waa firaaq habeenkii aan ka shaqeynaa noo fiican faa'iido weyn aan ugu jirto isbeddelka shaqo ee ku dhacaya dekada waa mid sare u qaadaya dakhliga ka soo xarooda waxaana wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda qorsheynaysaa in ay la jaan qaado dekadaha caalamka annagoo markaas ku maxaliraha aan xoog saarayno dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo dib u dhiska wadankeena inaan helno qalab ku filan dekada Muqdisho ama waa targetkeena aan isleenahay ilaa 2020 dekada meesha ay gaari karto in ay noqoto meel casri ah oo dekadaha caalamka buuxin kara 20 Juulaay ayay ahaydee markii guddiga amniga qaranka oo uu shir gudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay soo saareen go'aano ay ka mid ahayday in ay dekada Muqdisho habeen iyo maalin si isku mid ah u shaqeyso Maryan Janaqo Axmed warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho